waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadaha qiimiga badan kusoo dhawaaw abeeka teach. maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa wiil walaalkeena oo ku xiran my channelkeena facebook pagekeena oo inaga soo codsaday qaab facebook cusub. barnaamijkaas ciladaas haysato oo ciladaas idin tusiyo la wadaago watan you cannot use this feature at the moment. qaybtan waxaa lagaga xirayaa waxaa loo dhahay limited how often you can post, comment or do other things. waa posting ma dhigi kartid, comment ma ka bixin kartid, like sidoo kale waxyaalaha intaas badan. ciladahaas waxaan ku xalin doonaa ilaa iyo 3 steps hadduu alla yidhaahdo. 3 stepskaas waxaa rajeynayaa inaad ka bogan doontid channelka haddaad si tartiiba u daawatid muuqaalkaas insha allah. hana burinin oo muuqaalka waxaa jiro meelo yar oo haddaad burisid oo wax badan oo kaa dhimaayo insha allah bilaalkii. marka yaanan hadal kugu daalinin muuqaalka isla bilaabi doonaa. intaan muuqaalkan isla bilaabo waxaan kaa codsan lahaa haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe saartid, sidoo kale muuqaalka inuu loo gelaysid sidaa si lamid ah ciladan adiga ay ku haysato wiil walaalkaaga ama geer walaashaada ama wixii markaas la xiriiro ayaa maaragtay haysan kartaa. ku caabi oo muuqaalka usii sheer garee. aad iyo aad u mahadsan tahay. muuqaalka wuxuu isla daawan. ugu horeyn waxaad tegi doontaa qaybtan facebookkaaga ayaa soo kicin doontaa. facebook markaad soo kicisid optionka ugu horeeyo hadda sidaa idin tusinayay wiilkan walaalkiina waxaa haysato like iyo commentiga, sidoo kale posting uu soo dhigi karo. optionadaas ugu horeeya waxaan ku mari doonaa qaybta ugu horeyso anagoo fiirinayno. waxaan tegi doonaa qaybta 3 dhibcood oo aan ku calaameeyey. 3 dhibcood markaad tagtid waxaad ku dhufan doontaa qaybta profilkiisa. profilkaas maxamed cali ismaaciil ku dhufo. markaad sidan ugu dhufatid waxaad tegi doontaa 3daas dhibcood haddaan ku calaameeyo saad u fahantay. 3daas dhibcood ayaa ku dhufan doontaa. 3da dhibic markaad ku dhufatid meeshan kaaga muuqato akoonkaaga waxyaalaha dhan uu maaragtay uu ka kooban yahay uu kusoo saari doonaa. optionkan ay ku qoran tahay activity login ayaa u baahanaa. activity loginkaas ayaa ku dhufan doonaa. loginkaas markaad ku dhufto sida halkan kaaga muuqato wuxuu kusoo qaban doonaa qeybo badan oo kala duwan. sida halkan kaaga muuqato meeshan bosti oo lasoo dhigay falcelin aan ka bixinay. falcelintaas ayaan iska tirtiri doonaa. waa qaybta ugu horeyso step 1. falcelintaas oo ah waxyaalahan hadda ay ka bixiyay ayaa qaybtan ay ku qoran tahay. qaybtaas ay ku qoran tahay remove reactions. falcelintaas iska saar oo remove reaction haddaa dhaho midkaas wuu ka baxayaa. sida hadda kuwan public waaye, kuwa maaragtay member of ay ku qoran tahay kuwan camal, kuwaas camal hadda ka saaraya. okay midkaas ka saar. sidoo kale maxamed cali ismaaciil reaction degree midkaan ka saar. member waa okay waan ka saaray. oo sida markaas kuwaas ugu saartid optionkaas ugu horeeyo waa option jiro oo markaas u shaqeyn doona hadduu alla yidhaahdo. waxaan u gudageli doonaa optionkeena labaad oo ah in facebook qolada facebook aan u dirsano codsi. adigoo meeshaada joogo waxaad tegi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay helping and support. helping and support markaad ka dooratid kadib waxaa kasii xulan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay report a problem. report a problem markaad ku dhufatid kadib waxaa dhihi doontaa qaybta hoose ay ku qoran tahay continue to report a problem. meeshaas ayaa ku dhufan doontaa. markaad sidaas ugu dhufatid creating report ayuu ku dhihi doonaa. creating report markuu ku dhaho waa qaban doontaa qaybtan ay ku qoran tahay profile ayaad ku dhufan doontaa. profile markaad sidan ugu dhufatid halkan ayuu maaragtay kusoo qori doonaa qaybtan screenka ah. waxaa soo gelin doontaa screenkan iska saar. waxaa soo gelin doontaa screenka oo cilada ka haysato. markaas ciladaas marka waa kan cilada soo gelin doontaa. qaybtan sarena waxaa ku qori doontaa qoraal
okay qoraalkaasna uu diyaarsan yahay okay qoraalkaasna waa kina waa soo qaadan doonaa asigana qoraalka markaas soo qaato koobi ayaan soo dhigi doonaa waxaa imaan doonaa meesha problemka haysta aan ku qori lahaa marka waa kina dear Facebook team my mistake your security system block my like and comment options you cannot use this feature right now ciladaas waqti xaadirkan ay haysato marka kadib waxaa dhigi doontaa qaybtaas ay kugu qoran tahay send qaybta ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa waad diri doontaa finished budget reportkaas waa la diray qaybta kale xigto waxay tahay oo markaas jirto waxaan samayn doonaa waxaad tegi doonaa settingiga telefonkaaga ayaa tegi doontaa settingiga markaad tagtid qaybta saddexaad settingiga markaad tagtid waxaa ku xulan doontaa meesha ay ku qoran tahay apps ama adigoo inay kugu qoran tahay laga yaabo applications apps-kaas ay ku dhufan doontaa waxaa imaan doontaa facebookaaga meesha applicationka facebook karaadi okay application facebook ayaa imaan doontaa applicationka facebook markaad tagtid waxaad tegi doontaa qaybta ay ku qoran tahay haddaan ku calaameeyo storage qaybtaas storage ay ku qoran tahay ayaa ku dhufan doontaa markaa sidana ugu dhufatid labadan option ayaad isticmaali doontaa meesha ay ku qoran tahay clean data iyo meesha ay ku qoran tahay clean cache labada isticmaali doontaa ana hadda applicationkayga wax ciladaas igama haysato wiilkaas ayaan ku caawinayay asigana waxaa ka codsanaya hadduu muuqaalkan daawano inuu sameeyo qaabkaas insha allah bidnillaahi alkariim maanta muuqaalkiina halkaas ayuu ku egyahay waxaan idin leeyahay tan intaan kulmi doono muuqaal aynkan oo kale ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu channelkana wehelka dhigo oo subscribe saaro sidoo kale muuqaalka like gare asxaabtaadana leysii wadaag ugu dambeyn waxaan idinkaaga tegi doonaa intaa dhalinyaro aad tahay waqtigaaga ka faa'iidayso waqtiga waa muhiim